بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين أما بعد لما نمضي الصوماليين ملك سيجوكتوا السلام يا سلام كدب وحوي ما أنت وحكى الله يا الرماها كالوصن أما كتاجن سومالان جارهان قول كسول وحياها كدعي المجري وحوي سلطان جامع سلطان أحمد جامع كدب كان مده odayaasha dhaqanka umada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka bari ee Soomaaliya waxaan leenahay waxyaabaha ka dhacaya lascaanood arin aad u wanaagsan ma aha waa arrimahan anagu nagu noqotay horta fajiciiso sababta ay tahay gobol Soomaaliya kamid ah oo maxaa la yiraahdaa laga tarxiilayo dad Soomaaliya oo maata ah oo haddana ma taqaanaa dumar iyo caruur iyo waayeel iyo waxyaabo anaga horta aad iyo aad waxay noogu noqotay aan la yaabno ka wadayahan sababtu waxay tahay Soomaalida waligeed kama dhicin ibid kama dhicin gobol Soomaaliya kamid intii dad laga kaxeeyo loona kaxeeyo maxaa la yiraahdaa gobol kale la geeyo ama tarxiil lagu sameeyo si ahaanba waxaan u naqaanay Sacuudiga ama Carabaha bay ka dhici jireen Carabaha qayb kamid sida Sacuudiga oo kale waxay ka dhici jirtay intii la soo raafo in Soomaaliya dib loogu soo celiyo marka waxay tahay waa arin ma taqaanaa aad iyo aad aan uga xumaanay gaar ahaan magaalada Laascaanood wixii ka dhacay waxaan kala maqalsoonahay inay jirto Soomaaliland oo dhan arrinta inay ka dhici doonto sida Cergaab oo kale Burca Hargeysa Boorama waxyaabahaas laakiin waxyaabo ma taqaanaa dhaqan Soomaaliyeed ma aha islaamnimo ma aha sharaf ma aha Soomaaliya dad badan oo ajnabi ah jooga oo Ethiopian leh oo Eritrean leh oo Sudan leh oo Kenyan leh oo ummado kala duwan leh oo ajnabiya laakiin dad Soomaaliya oo luqadiyo isku mid ah diintiyo isku mid ah midabkiyo isku mid ah in la sameeyo dadka intii la soo qabto meel la isku aruriyo kadib gaar lagu soo guro kadib dadkii xoolahoodii baadiyaha garanaysa dadka xoolo baadiyaha qayb ka mid ah sidaan maqlaynay waxay haysteen ari bay haysteen waxay haysteen dukaamo waxay lahaayeen meelo badan oo ganacsi oo kala duwan waxyaabaha anaga la yaabno waxay dadkii intii la soo qabtay oo gaari lagu soo aruriyay oo dabadeedna dadkan digniin la siin waqti loo qaban hadii xataa dhacdoba dadkii in ma taqaanaa magaalada in laga saaro dhacdoba in ma taqaanaa qaabkii nidaamka oo sharci caalami ah jira inaan mid loo marin marka anagu waxaan leenahay Soomaaliland arin falxumaa bay ku dhaqaaqday mana qurux badna waxaas ay sameeyeen sababtu waxay ku tahay dad maata waxaan aragnay xataa oo ma taqaanaa idaacadahan ka daawanay oo aad aan ula yaabnay qof dumar oo dumarada kamid oo haddana qof dumar oo haddana dumarada ma taqaanaa la soo qabtay kamid ah oo haddana raaf lagu sameeyay oo haddana ma taqaanaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg hadii la raafay oo maxaa la yiraahdaa ii sheegeen gaariga dhexdiisa ku dhashay wax aad loola yaabo way xaqiiqatan waxa aad loola yaabo way gaariga ku dhashay taas mid bay ahayd waxa kale oo jirto oo haddana la yaab ahayd maamo 15 bari dhalan qof dumar oo 15 maalmood dhalan oo ilmihi haddana laga soo qaaday oo ilmihi ay ka soo tagtay ayadoo suuq adeeg qaadanaysa haddana la soo raafay waxyaabaha la yaab kale kamid waxyaabaha kale la yaab kale waxa kamid ah wiil yar oo 15 jir ah oo ardaya baa la su'aalay waxa la yiri ka waran oo meesha maxaa ahaan jirka suuri arday baan ahaa maadib baan ahaa maxaa hadda u baahan tahay la yiri dadkii aan ma taqaanaa ku dhashay oo ma taqaanaa ardadii iyo masaajidka maadika ku ahaa iyo shacabka dhalinyarada iyo dadkii aan ku dhex jiray masaajidka wixii baan u baahanahay bulay marka waxyaabo la yaab leeyahay waxyaabaha kala hadan la siyaab kale waxa kamid ah gobolka Sool wuxuu leeyahay 14 isin bulay 14 ka isin ka hadla male waa ogtihiin xornimada Soomaaliya gobolka Sool waa gobolada ugu magac dheeraa xorriyada Soomaaliya oo dagaalankii taariikhda ku yaala garanaysaan qalacdii sayidka ku yaala sida Ingiriiska la dagaalameen sida Talyaaniga la dagaalameen sida ma taqaanaa dadkii xulufada gaalada waxa la dagaalameen waxyaabo gobolkaas wuxuu leeyahay sumcad Soomaalida ka duwan marka Muuse Biixi oo kala madaxweynaha Soomaaliland waqti yar oo kooban buu haystaa wasiiradiis waqti kooban bay haystaan waqti waa ka dhamaan karaa marka maadaama waqtiga ay haystaan waqti iska yar uu yahay ama ay ka dhamaan karto dawlad kale oo cusub ay iman karta marka sumcad xumada wuxuu uga tagay gobolka dadka u dhashay gobolka Sool dadka u dhashay sumcad xumada uga tagaya waxaan digniin uga direynaa marka gobolada kale oo Soomaaliland markaan kan aan ka soo tagno Laascaanood iyo Sool aan ka soo tagno
gobolada kale Soomaaliland sida Ciragaabo iyo Boorame iyo Hargeysa iyo Berbera iyo waxaan leenahay tan oo kale ay ka dhaceen shacab ahaan waa inay kacdaan waa in mataqaana culimada ay kacdaa ay ka hadashaa waa in dadka cuqulada ay ka hadlaan isimada waa inay ka hadlaan waa in arrinta iska bariyeelaan sababtu waxay tahay wax kan oo kale wax fajicisa weey wax qurux badan ma ah wax Soomaaliland xataa ku heli mayso Soomaaliland waxaad ku heli mayso oo intiraaf ku heli mayso oo mataqaana magac ku heli mayso dad masaakiin oo la raafay haddii xataa ay dhacdo amniga qalqal ay ka tirsanayaan dad kamid dadka maxkamad baa la soo saaraa kayska waa caadi in la qabto maxkamad la soo saaro wixii dambiga lagu og laakiin islaan xaamila oo masaakiin ama umula maxay galabsata odo waayelo sirqaan wuxuu galabsaday dad 5 sano ku nool dad 3 sano ku nool maxay galabsadeen haddii ajnabi la raafahayo ajnabi ka mudan baa jira ayaga ajnabi ma waa Soomaali ajnabiga ka mudan sharciyo ka soo saara waqtiyo u qabta ka saara dalka laakiin dadkan ma mudna koonfurta Soomaaliya ma mudna Soomaali kale ma mudna in mataqaana intii gobol Soomaaliya kamid la raafo gobolka loo raafo arrin annagu aan mataqaana aad aan la yaabno weeye digniintaas culimada inay ka hadlaan wixii dhacay waa in culimada ay ka hadlaan waa in dhaqanka ka hadlaan waa in waxgaradka ka hadlaan waa in aqoonyahanada ka hadlaan ururada bulshada waa inay ka hadlaan arrintaas saano dibdaba u dhicin tan dhacday laakiin dibdaba aan u dhicin taas aan leenahay aad baan uga xunnahay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan leenahay Soomaalidu horta ma kala maaranto miyay magaalo meel kasta joogto Soomaali waa hal midab waa hal diir waa hal mataqaana muuqaal waxa weeye dadka hadda u ololeynaya in Soomaaliland mataqaana laga raafo umada joogta aniga Faysal Cali Waraabe dad waa isku badina waan ismaqaan waxyaabaha afkiisa ka yiri waxa kamid aha oo aad iyo aad mataqaana Faysal Cali Waraabe uga hadlay wuxuu yiri annaga Soomaali ahaan lama kala yaqaanba jinsi ahaan inaan waqooyi ka soo jeedno inaan koonfur ka soo jeedno Soomaali hal midab beelada haddana mataqaana in dadka hadda kale oo siyaasiyiinta ah dad waaweyn oo odayaal oo siyaasiyiin oo wasiirro iyo la taliyaal oo arkayo mataqaana dadka dhibaato gaar ah ku hayo oo si qaldan u hadlayay ma qurux badna waxaan oran lahaa lama kala maarmo biyo meel godob bay iskugu yimaadaan Soomaali waa far weeye waxaan leenahay Soomaaliland ay arrinta laga digtoonaado hal laga digtoonaado fiiro gaar ah loo yeesho hal la ilaasho Soomaalinimada hal la ilaasho islaamnimada wixii siyaasadda waa meeshida wixii siyaasadda la isku hayo waxay leedahay fadhi bay leedahay mis bay leedahay wada hadal bay leedahay laakiin tan oo kale maya tan oo kale waa wax dadka shacbiyan xataa idinku nacayaan shacabkiina idinku nacaya shacabka Soomaaliyeed baan idinku nacaya aragtiyo xun baa ka imanaya waji gabax baa ka iman kara waa ka digaynaa aad baan uga digaynaa hal laga digtoonaado arrintaas arrin farxumo badan weeye waxa weeye hal la joojiyo wixii dhacay waa dhaceenba haddii odayaal dhaqan ay ka hadli lahaayeen oo mataqaana arrintaas ay ka joojin lahaayeen iyo haddii culimo ay ka hadli lahayd laakiin aan dibdib u soo laaban caana qabtaa dabadeeda la qabtaa caana qabta dabadeeda la qabtaa waxa weeye dadka oo dhan dambiilayaal ma aha waxa laga yaabaa dhowr wasiirro iyo dhowr taliye in arrinta ka dambeeyeen dadka deegaanka degan soo wax laga ma weydiin arrintaas saar boqol sano anaga aan xataa xogta u helnay markaan baaday goobna muddaanu ka aamusay dhowr maalmood baan raadinaynay waxaanu soo helnay in wax tala laga weydiin dadka deegaanka ka soo jeeda sool wax tala lagama weydiin waana waa qalad weyn oo gobolka lagu bahdilayo oo Soomaalida la nacsiinayo oo waji gabaxa oo dadka la iska horkeenayo hadda wax magaradka u dhashay koonfur waqooyi dhibaato ka sameyn karaan yaa marka koosgareeyo dhibaatada keenay waxa keenay afarta taliya ama afarta wasiir arrinta ka dambeeyay la keentay marka waxaan leenahay waanu ka digaynaa kan dhaqan ahaan waa ka digaynaa kan oday ahaan waa kaga digaynaa kan Soomaalinimo waa ka digaynaa arrinta ay soo noqoneen wixii siyaasadda Soomaaliland ay dabacsan tahay mis wada hadal bay leedahay wixii siyaasadda ha sameeyay laakiin tan siyaasadda gelin wabillahi tawfiiq